الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي في العقيدة عموما تاريخ marka laga waramayo faa'iidada koowaad ee taariikhdu leedahay waxa weeyaan waa lilcibra waa in lagu waayo arko sida awgeed baynu odhan karnaa qur'aanka kariimka ah in thuluthba ku dhodhow ama saddex meelood oo meel ku dhodhow ayaa qisas ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qiso kaga warramaya naxnu naqusu calayka axsana alqasasi bima awxaynaa ilayk laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سدراد إلهي سبحانه وتعالى نقول بدن أيو قرآنك كقور رمى يا قصو qisada qur-aankuna asbaabo badan bay u soo aroortaa waxaase ugu muhiimsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka ku tilmaamaya qisaska in laynoogu sheegayo inaynu ku tafakurno ama ku waaya aragno inaynu ka qaadanno cibar inay noqoto wax lagu waaya arko cibratun liuli lalbaab lacallahum yatafakkaruun markaynu u fiirsanno markaa qisadu sideedaba waxa ugu quruxda badan lee ku jira waxa weeyaan in lagu qiyaasto wakhtiga aad nooshay iyo duruufta aad ku nooshay adigoo ka qiyaas qaadanaya umamkii hore iyo wixii ku dhacay noocan adigu aad u nooshay wixii la mid ah waayo basharku sunna ilaahay u dejiyey subxaanahu wa tacaala joogta ah sunnadaasi waa sunna haabita bay culammadu ku tilmaamaan haddaad samaysana inaad sama helayso haddaad xumo samaysana inaad xumo helayso maadaama ay caynkaasi tahay qisasku waxay u baahan yihiin in badan inaynu fiirsanno qur-aankana in badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga warramay qiso nebi qiso fircown iyo gaal qiso wadaadda inxiraafay qiso yacnii kullu shay baab kastoo aad qiso ka egto qur-aanku wuu ka warramaya taasi waxa ay tilmaamaysaa inaynu u baahannay qiso dhammaanteedba innagoo laakiin isdul taagayna mawaadic alcibar meelaha cibradu ku jirto ee u baahan in inta badan la eego amase la isdul taago waxaa kaloo mudan oo qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan inoogu tilmaamaya inaynu umamkii inaga horreeyey taariikhdooda daraasayno waxay dhahdaan casri kastoo la joogaa wuxuu u badan yahay cusurta dambe waa طabca jadiida likitaabin qadiim bay yidhaahdaan haddaad taarikhda dib u fiirsato baalan la mida kanaad nooshahay unbaad arkaysaa oo si kastoo aad u qiyaasto ama aad u qiimayso la mida idan bay yidhahdaan waa طabca jadiida kitaab qadiimoo hore loo soo maray waayo dunida horey u soo mareen dad taalixiina iyo dad saalixiina dad xunxun dad wanaagsan nooc kasta horey u soo mareen sidaa awgeed waxay u muuqanaysaa taariikhduba inay u eg tahay طabca kitaab qadiimoo hore u jiray ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya ina leeyahay qad khalat min qablikum sunan fasiruu fi lardi fanduruu ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala idinka hortiin waxaa tegey sunan baa dhulka tegey ee fasiruu fi lard dhulka socda baa la yidhi oo fanduruu كيف كان عاقبة المكذبين فصيروا في الأرض القرآن كأنت كسار ورته هدادو فرصته أدادو تعجبيسا آيات آدو تربضا بإلهي سبحانه وتعالى كقور رميا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها يعني إلهي سبحانه وتعالى هدينا النصوص تقصى أررتي فسيروا في الأرض يا قرى أي كبضا إن محاضرة لغو أخريه وإلهي من إلهي هي قولدي دين كهر ريسيبا وقار ألا هلاقي وللكافرين أمثالها سيدا أوجد تاريخ الدراسة وباهنتي دراسة أن تمتع هين بوباهنتي دراسة أن كراحيس قرا هين إن لسدول تاجم مالها عبرة وين لبوباهنتي أممكو حتى دتك أميينتي حتى كان وحقورين أنت بدن يكوا وحقورين بدن وكم يدبا على مدى جرى تاريخ تكو علامة صدان مثلا وحا ما هذا الله يراده ودعضي قصة دعضي oo weer yaro kooban lagu xifdiyay oo markastoo dhacda la mid ay timaadaba mahmaahda la sheegay waxa la yiraahdaa ninkan hebel waa aftahannimadu waa maxay wadciga hadda yaala ayuu wuxuu ga qiyaas qaadanayaa dhacdo hore dhacday oo ku jaan go'an sida daraadeed ba mahmaahda gabigeeduba waa calaamad taariikhda la calaamadiyay waa dhacdo kamid ah dhacdooyinkii taariikhda oo la calaamadiyay gabayga la mid ah gabayada inta badan taariikhda waa lagu calaamadsadaa oo dhacdooyin dhacay oo taariikhiya ayaa gabay yaro koobani uu tilmaama qisaad u tiro badan leh walidaalka waxaynu u baahanahay sideedaba qiso dhammaanteed inaynu aad ugu noqono taariikh muslim mid walba waa ilaahay quraanka mid gaal iyo mid muslim oo kaga waramay مواضع العبر كان نسدح تاجنو أما يسك تاجنو درس كان ما أنت لقون دينه حلا يدينا كورمه تاريخ أندلس تاريخ ده سري ساعد يبرنا عنه شجنا قرن مايه أندلس دولة الأموية لبي سجاشن كي هجرية ده أيالا فرطي طارق بن زياد يا موسى بن نصير قائد كان لورين شري طارق بن زياد ودري لبي سجاشن كي بيبدلابين فرشدي أندلس يوجوه الرئيسي أندلس ووطن كي يرى أيبيريا لورين شري أما وجزيرة ما أنت عنكا إسبانيا برتغال أيو بدنيهين غرناطة وآخر مملكة إسلامية غرناطة مقالة هذا الله يرهدا مملكة دي قدام بشيء إسلامي هذا يكبح هذا سداد بقول تضبي سجاشن كي محرم كودي دي بالله صار آخر الملوك أبو عبد الله نكى هو يدي قبل يوتري رسائل هاي بغرطويات سيد الرجع إلى علم ويدي سيد الدمر كوجو قبل أبو يوتري نسي يبكي مثل النساء قبل يكشرو وأي تلمام الشهادات سيد الرجع إلى شنكر ويدي سيد الدمر كوجو وحلا مركي قدام بيساو كدقاقي معاهدة أيوك كجبحي معاهدة مركي لك على الساحة ودونيه فولو يسأكت أقدبوا أجي قصرية دي سيو حيسي مركاسائل مكسود ده ديبال ليري هو يدي بمركا ويرد تنكتري وتاريخ مركا سداد بقول يشان سنادات ككوبان سداد كدقيقين ليسيا هدانو قايبيو طبعا كي سنادات بحال دقيقانو هيا طبعا كي سنة تاريخ ده كم مدama هل دقيقة يكسو بيجمية مركا وأدكتي تاريخ أندلس إن كجو ورناه سداد دقيقة يوحلا مده عموما أندلس لبي سجاشن كي لقى بلابه إلا بقول يو سداد يصدم كي هجرية ده وحيهوس إيمانيسي الخلافة الأموية مركي خلافة الأموية يدعدي الدولة العباسية يمشى قبصتي ويل دلني يرى أمويين تكمدا أيا دلكي كبحصدي ولا الذي لدلي يساقي بحصدي وحو الصعدة وحو قاري ودن كاسي عبد الرحمن الداخل لو صقر قريش إنك اللي بحيي دولة داسي سجى دبوا أساستي سجى غريب أبو ودن كانت جاي وحباه سنين لكن دولة بمدير كجدستي دبتنا دولة وبلارن أيو دستي دوري صدق سنة بانفليا فري صدق سنة دوت
ayuu xukumayay waqtigiisii intii badnayd thawraad bay kaga dhacday 25 thawradood ayaa ku kacday 34 sannadood ee uu maamulayay akhiiran 170 meelaha markay maraysay ayuu wadanku istiqraarkiisii sugmay madiinada caanka ee madiinada zahra la yiraahdo qurtaba ku taala ee taariikhda mudankii ugu caansanaa dunida ahaan jiray ugu quruxda badnaa ayuu waqtiga dhisay masjidu qurtaba oo masaajidka weyn buu bilaabay ilaa iyo markii dambe masjidu qurtaba sidii loo weyneynayay 1200 oo tiir buu markii dambe lahaa masaajidka tiirarkiisu bilariskiisu 1200 isagoo 1200 bale oo kiniisada ayuu haddana ka dhisay qurtaba wali masaajidkii waa dhisay laakiin hadda waa kiniisad taariikhdaasi dheer ee wadankaasi leeyay waa taariikh maasi tiro badan leh ama meelo madmadow oo aad u fool xun oo tiro badan leh meelo aad u qurux badan na leh waa taariikh markaasi runtii daraasadeedu ay tahay taariikhaha ugu fiican in la daraaseeyo waayo waa taariikh isbedbedelkeeduna badan yahay asbaabta keentay isbedbedelkana markiiba aad isha ku dhufanayso aan wax badan oo u fiirfiirsi badan kaaga baahnayn marka aan soo koobo haddii aan taariikhdan maraaxil u qaybino marxaladda hore waa marxaladaasi dhismaha koowaad ee ninkaasi dhisay kadib inaanu dhalay baa ka uga dambeeyey kadib inan kale uu awowyaha uga dambeeyey qolada hore waa iska fiicnay laakiin waxaan jeclahay meesha u baahan inaynu si fiican u daraasayno inaan isu soo dultaago taariikhdani markay muddo socotay ayaa ninkii ugu dambeeyey waqtiga aan rabo waxaan rabaa cahdigii muluku tawaa'if ay talinaysay cahdigii ugu fitna badnaa inaynu tagno ee taariikhdaasi ka mid ah waa cahdiga loo yaqaano muluku tawaa'if ama boqortooyooyinkii طائفaadka yaryar ee kala nooca ah muluku tawaa'if waxa ka horeeyay laba boqor oo aad u waaweyn waa cabdiraxmaan الناصر ama cabdiraxmaan الثالث taariikhda bani umayya saddex nin cabdiraxmaan la yiraahdo soo maray daakhilkii iyo cabdiraxmaan kii labaad ama thani iyo cabdiraxmaan الثالث nin lagu tilmaamo iyo saddex hishaamkii koowaad kii labaad kii saddexaad cabdiraxmaan الثالث أو cabdiraxmaan الناصر ninka loo yaqaano wuxuu xukumayay wadankaasi 50 sanadood 22 jir isagoo abuu qabsaday waana mararkay ugu qurux badnayd buu wadankaasi gaadhsiiyey nin karti leh oo la kacabsi leh oo dawlad xoogan dhistay oo thawraadkii iyo wixii ka soo horjeedo dhan ka takhalusay oo ballaadhiyay dawladda islaamka ee meesha dawlad aad u qurux badan leh buu ka tagay markaas cabdiraxmaan الناصر dawladdii quruxda badnayd ee uu ka tagay inankiisii baa dhaxlay la odhan jiray alxakam ibnu cabdiraxmaan الناصر alxakam waxaa nin caalima aqoon badan diin jecel alla ka cabsi badan dawlad deganna helay isna dhanka cilmigu isaga faafayba waa maktabadihii caalamka ugu waaweynaa ninkii samaystay 400,000 oo majalladood baa maktabadiisa ka koobnay isagu nin caalima oo faqiih buu ahaa muddo haystay laakiin qaltadii ugu weynayd buu galay bay yiraahdaan dawladdii aadka u ballaadhnayd ee meesha ka talinaysay markuu ka geeriyoonayay inama waaweyn ma lahayn inan yaroo uu dhalay ayuu ka dhigay inuu leeyahay wilaayada isaga dabadii culimada ugu da'weynaysiisa 12 jir bay ka dhigaan taariikhda kuwa ugu yareeyana 7 jir adigu nin 7 jir meelahaasi ah daadiisu هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر نكي لو رجل هشام الثالث نكوي قانين أما المؤيد بالله لغة المامور هشام كامركي ماشى لو ديبي هشام المير بوها ما دام المير اسكاها وصبوا سميا معد إلى لسه سجى سلانه هويا يلا من وكله taariikhdaasi mar rabo bitafsiil inaan uga warramo wuxuu mar rabaa mawaadicaan u dan leenahay inaan gaadho waxaa isku qabsaday dawladdiiba nin la yidhaahdo moxamed ibnu abi caamir moxamed ibnu abi caamir waa nin qabiil yaman asalkiisa uu ka soo jeedo
الحاجب المنصور نك الله بحيويان حاجبك تاريخ ظاهره ورئيس الوزراء وكله نك ومبغر كورك على كلا الدرة أي حاجب لورن شري حاجب كاسي تاريخ الإسلامي جوهره حاجب كاللقب لو ما سبين شرين بغركم باللقب لحان شرين المنصور بالله وحي إنه مقالله المقتدر بالله القادر بالله مقعية داسي بغر هذا لحان شرين لكن حاجب كي وزراء ما لحان شرين نقول ما دام الدولة دي قاعدة تسكجر دقي لقب وسمجته المنصور لا يلاحظه سجى قبصدي الدولة دمانتك نمن كي أكتيسسوا مرمرين وكتخلصي صدح نبالة الماما أكتيس كذا دوامة وسلا وحبك وقبصانيان مكيدو ينبو سمي بيد هذا صدح دي بقى كتخلصي دولة دي سجى قبصدي ويلكي يرانا وحيرين يربط هاي عبادة يسوع بقرض الله ما صار قالوا هالكا كتير meel buu ku xidhay bay yiraahdeen oo iska joogi jiray xataa markuu soo baxayo dumarka lagu dari jiray koox dumar inta la raaciyo farda la saaro barnaskan ay qaataan hal yiraahdaa Moroccan iyo Maghribta oo idinka arka koofiyada yar ku samaysan qamiiska rag iyo dumar baa nooc ku samaysan bay qaataan nooca inta loo xidhay baa la yiraahdaa barnaska la yiraahdo ayuu xataa lagama dhex garan jirin bay yiraahdaan dumarka uu la socdo iyo kooxdaasi galbinaysa cidima arki jirin waa iska cibaadeysan jiray meeshiisaas iska joogay ninkan la yiraahdo al-Hajib al-Mansur baa dawladda haystay laakiin nin aad u cajab badan buu ahaa dawladdii wuu sugay waxyaaba cajabana waa laga tilmaamaa 52 dagaal buu galay intabana wuu guuleystay walaa qarno 54 bay sheegayaan لكن إمام الذهبي كنتن يلا بكرجيا كنتن يلا بدأ قال بقلاي كنتن يلا بدأ غزوة وقلاي بوسوق جولست إذا نوح كرجي ودن كي أندلس لورنشري إسلامي جاها ودن آن قلبهم قرينين أكتي سعيد الصومرين ضحاك بدن إمام الذهبي وحكت المام يعني كاسه وكان موته آخر الصلاح وأول الفساد لأن أفعاله كانت حسنة في الحال فاسدة في المآل إمام الذهبي في سيره وحورنا يانيكا كان جاريدي سوحي هيدبيد وناقا وحي وقدم بيي أعماشي سنة جاريدي سو وناقا وحي وقدم بيي بيهيد فساد كان وحي وقوه الرأيي أفعاشي سنبو يدي waxay ahayd xasana fil xaal marka waqtigan la joogo camaladii uu sameeyay camala aad u qurux badan laakiin cidib xumo dambe oo badan ka tagay bayaninkani wuxuu sameeyay khilaafo aanu khaliifku talina qolo kala taliso inaanu dhalay buu uga dhintay kiina halkii buu ka sii hayay 7 sanadood buu meelaha ku sii haystay laakiin nin saalix isaguna ahaa dawladii waxba kaba xumaanin mid uu dhalay oo kale ayaa sii dhaxlay ka dambe uu dhalay nin fiican ma ahayn wuxuu ahaa nin marka hore hooyadii Faranjiye tahay islaam Faranjiyada dhashay islaamii waliba hadiyaadka boqorrada ay u siiyeen mid kamid ah dhashay shangal baa la oran jiray waxaanu ahaa nin fasaad badan aad u fasaad badan ninkaas dawladii qabsaday akhiiran dagaalo iyo burbur buu isna iskaga dhintay waxa soo baxay in lagu kaco dabeetana meeshii waxa qabsaday nin cusub oo umawiyiintii ka tirsan waxa la yiri waayo shanjalkani wuxuu sameeyay khatarta kale waxay ahayd labadii hore waxa iyagu yiraahdeen anagu xaajibaan wilaayada umawiyiintii ba iskalo muayyid billahi ba qolka dambe ugu jiray war maxaa muayyidkani qolka kaga jiray buu yiri muayyidkana waa ha iska tago aniga ah buu yiri khilaafadii waliyo العهد buu sheegtay markaa بعد المؤيد بالله inuu isagu wilaayada leeyahay wilaayadina ay wareegtay dawla lamawiya ama qurayshiin tana wilaayada dadku nooc ma way uga dambeeyeen laakiin kani waa caamir yamaniya marka ma uga dambeynayaan dadku sidii looga dambeeyay awal waxay ku maamulayeen inay xaajibiyiin ama inay sultada yani ra'iisul wasaare inuu ka yahay nin محمد بن هشام بن عبد الجبار la yiraahdo umawiya baa lagu kiciyay dabeetana ninkaas meeshii inqilaabay waa qabsaday waqtiga kan waa ahdi fitna bilaabantay waa qarnigii shanaad iyo bilowgiisii 400 taariikhda hijrigii markay maraysay weeyaan ninkani markuu meesha qabsaday
caamiriyiintii buu eriyey meeshii buu xoog ku qabsaday waa dawladdii buu isyidhi isku dabarido laakiin looma daynin ee waxaa bilaabmay wakhti fitnaa oo madaxnimadii la ysku laayo oo tiro badani dhacdo taariikhda 400 la joogo ilaa 422kii laga gaadhay waa 22 sannadood 22 sannadood 13 amiirul mu'miniin baa soo maray yani waxaad qiyaasi kartaa markaa fitanka iyo mashaakilka taagnaa sida uu eegaya 22 sano oo 13 amiirul mu'miniin oo kala nooc ay soo mareen waxa dhacay ninkii guriga ku xidhnaan jiray mid ay walaalayiin oo boqorkii weynaa al-Hakam caalimka aynu ku sheegaynay uu dhalay al-Hakam ibn Abd al-Nasir nimuu dhalay oo Sulaymaan la yiraahdo ayaa isku dayay inuu dawladdaasi inqilaabo laakiin wuxuu furay albaab cusub oo aan taariikhda Andalus lagu aqoonin albaabka maalintaasi furmay Andalus wuxuu ka mid yahay waxyaabihii keenay inay burburto markuu arkay ninkan madaxda iyo qolada dawladda haystay inaan uu babac dhigi karin ayuu wuxuu qabtay dawladdii gaalada ee ugu dhaweyd Qashtaala meel la yiraahdo Qashtaala dawladdii weynayd ee muslimiinta Andalus markay qabtay bilaad sakhar buura yar yar oo la yiraahdo oo badan sare ee Spain ku yaala oo qura ayaa ka harsanaa waqti dabadeed dawladda yar way iska weynaatay dabeetana gudaheeda iska dishay way kala gooday Lyon iyo Qashtaala bay kala noqdeen Qashtaalo waa castle oo af Carabiga markay qolada Carbeed akhriisay Qashtaalo akhri waa qalca dawladda yar oo meesha joogta ayuu tagay wuxuu kula heshiiyay dawladdaasi yar inay saacidaan way ka saacidaan dawladdii Qurtuba ka talinaysay in la inqilaabo ay ku wada duulaan Alfonso in la yiraahdo dawladda tan nimankii haystay wuxuu arkay fursad saciida inay tahay awal dawlad yar oo jisiya bixiso ka dawladda weyn ee muslimka xukunta buu ahaa maantana wuxuu arkayaa muslimkii oo islaynaya fursad buu arkay inay tahay waa ogolahay buu yiraan ku wada duulo waa la wada duulay dabeetana waxa laga qabsaday meeshii iyada ahayd ninkii la oran jiray Muhammad ibn Hisham ibn Abd al-Jabbar al-Mahdi la baxay ayaa Qashtaala iyo Sulaymaan ibn al-Hakam سليمان بن الحكم والله بحي المستعين بالله والله تاريخه waxay yiraahdaan المستعين بالسليبيين buu ayaa مستعين بالله ma hayne inta qoladaas oo ka haystay ayaa lagu wada duulay dabeetana dawladdii baa ninkii laga qabsaday waxay boqortooyadii dib ugu soo noqotay markaasi wiilashii uu dhalay الحكم ابن عبد الرحمن الناصر wiilashiisii mid kamida oo ah سليمان كان هشام كيبا walaalaatii guriga lagu xidhi jiray markuu meeshii qabsaday mahdigii jabay ayaa wuxuu la kulmay wiil la yiraahdo al-Fata waadix oo caamiriya caamiriyiintuna oo nimankii xaajibiinta meesha ka ahaan jiray ee laga qaaday Muhammad ibn Abi Aamir qoladu ka tirsanaa weeyaan mahdigani wuu qaldanyo qoladii uu dawladooda baabiiyay ayuu markii la soo eriyaday hadana uu yimiyo uu leeyahay ninkii amawiga aanu iskureerka ahayn meesha ay kala qabta fatal waadix waa aqbalay laakiin waxay yiraahdeen ninkii uu xoogan yahay malak Qashtaalana waa kii ka haysto meesha waa isku qabsadeen kama qaadi karnay maxaynu sameeynaa waa loo fakiray waxa la yiraahdaa aan gaal kala raadino dabeetana mamlakatu Aragon Barcelona magaaladan la yiraahdo ayaa caasimad markaa u ahayd Barcelona boqortooyo ka dhisnayd oo qolada gaaleed ay lahayd ayaa u yimaadeen boqorkii haystay waxay yiraahdeen waxaanu rabnaa Sulaymaan ibn al-Hakam iyo waxoogaga barbarka oo haysta Sulaymaan ibn al-Hakam kii meesha qabsadayna qishtaaliyiintii mooyaane wuxuu kale la qabtay meesha maayna wuxuu soo dhaweeyay qabaa'ilkii barbarka ah oo qabaa'il aad u xoog badan oo tiro badan oo wadanka joogay kuwaas oo markaa sanad u ah waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay inaad nala duusho oo aad nala qabato khilaafadii islaamiga ahayd oo ay gacanteeda soo gasho ninkan ay u tageen Barcelona haysta
ودول كي يرى جزية بحين شري وعبد الرحمن الناصر جزية سين شري ومن بعد هنا الحاجب المنصور با جزية كغاد الشري نكي جزية بحين يبين انت وتجان بي وحيد هذا وحن ربنا ينادنا لفرته وضنكي او ماشي نلقبته امير برشلونه وحول واصفي عن لكن بشروط شروط باندغانيا شروط سيبان idin kula duulaya waa maxay baa la yiri shuruudaadu waa laba nin oo iska soconaya la ciidan ma haystaane wuxuu yiri ciidamadiina iyo wixiina kale marka keensataan anigu dagaalku intu socdo buu yiri maalin kasta oo dagaalkaasi soconayo 100 dinar oo dahabiya baan rabaa oo boqortooyada ay leedahay cashuura maalin kasta oo dagaalku soconayo dawladda Barcelona in la siiyo 100 dinar oo dahabiya kow ciidan baan idin siinaya ciidanka aan idin siiyo askari kasta oo dagaal gala waxaan rabaa 1 dinar oo dahabiya in maalintii la siiyo askari kasta oo dagaalka gala 1 dinar oo dahabiya inuu helo afar waxaan rabaa bulay dagaalka markaynu gallo ama saddex dagaalka markaynu gallo haddii aynu jabinno khilaafadii naasi wixii hub la qabsado inaan anigu qaato dawladda Barcelona inay hub ka qaadato afar waxaan rabaa buu yiri madiinada Salim la yiraahdo oo ah mudankii uu furtay Cabdiraxmaan Naasir ama Cabdiraxmaan Thalith ninka la oran jiray dhulkii uu furtay magaaladaana in muslimiinta laga soo wareejiyo aniga gacanta la geliyo afarta sharti hadaa aqbalaysaan oo idin la duulaya boqortooyada maalintiiba 100 giniya oo dahaba 100 dinar oo dahaba askari kasto caynkaasiya waliba askarta wadankii wuxuu cilaamiyay in nimankii muslimiinta lagu duulayo wariyaa tatawacaya buu yiri duulaya oo waliba lacag helayo maalin kasta 1 gini baa la idin siinaya dadkii baa askar bay soo qoreen waxa la yiraahdaa anaga duulayna la meesha lacag baa ka furantay duulimaadkii baa intiiba uu ka aqbalay waxay yiraahdeen intaaba waa ku saxeexnay in la duul intii markii loo saxeexay ay la duuleen waxay jabiyeen markaasi Suleymaan ibn al-Hakam iyo barbarkii la socday sidaasay Barcelona madiinadii Salim la oran jiray ku qabsatay wixii hub iyo qanaa'im la helayna qaateen ee muslimiinta laga furtay mahdina xukumkii uu ku qabsaday oo magaaladii Qurtuba uu dib ugu soo noqday muddo yar markii la joogay labadan inay soo wada duulay dawladdii hore isku dileen oo iyaga laftooda heshiis ma aha al-Fath al-Waadix ba makiida u dhigay oo mahdigiina isla uu ka takhalusay meeshii isaga isu dhigay laakiin dawlad al-Aamiriya fikradeedii buu qaato wuxuu yiri war kaliga mala lagu ogolaan maayo dawladnimadii nimanka amawiyiinta wax ka raadi المؤيد بالله هشام بن الحكم بن عبد الناصر كي غوريga ku xidhnaan jiray oo meel iska joogo soo helay markaas uu war khilaafadii baa soo dhiciya kaale mar dambu ki kameesha laga qabsanaya waa walaalkii waa Suleymaan ibn al-Hakam هشام ibn al-Hakam buu soo ka haystay Fath al-Waadix dabeetana wuxuu yiraahdaa adigu noqo boqorkii meeshii buu iska fadhiistay kiina Suleymaan ibn al-Hakam baa meeshii qabsaday waxaan leeyahay Fath al-Waadix ayaa meeshii qabsaday Suleymaan ibn al-Hakimna waa la yeeriyay gaaladeeg sibay baratay Suleymaan ibn al-Hakam isna wuxuu yiri bal maliku qishtaala dib ugu noqo ha gaal aan inaad gura dib u laabto wuxuu tagay albansihi ka talin jiray qishtaala ee berigii horena saaciday mahdigii la fiday Maxamed ibn Hisham ibn Abd al-Jabbar ninkii meesha kala qaaday waxay yiraahdeen meeshii nalaga qaad de mar damaan rabnaa inaad nala duusho saasmiyaha bal saddex cashay suga buu yiri saddex casho hal ay sugo saddexdii cashay uu joojiyay ayuu boqorkii qashtaale haystay nin buu soo diray qoladii kan inqilaabtay buu u tagay uu nin u diray wuxuu yiri halkan waxa ila jooga Suleymaan ibn al-Hakam oo raba in la soo duulo waxoogaana de ballan qaadana waan ka hayaa maxaan kaga hadhi karaa idinku ay siinaysan dad rabtaan inaan la soo duulin waxa la yiri waxa allaaliya waxa qalcad muslimiintu leedahay waqooyiga ku yaala qaado
ha soo duulin nimankaa ha soo raaci boqorkii qishtaale waxaanu filayn baa u soo baxay waxyaabihii la kala doorransiiyey waxaa ka mid ahaa markaa qalcadaha waqooyiga ku yaalla waaweynee xusuntii muslimiintu lahayd in isaga la siiyo duulimaadka ninkana uu ka hadho wuu aqbalay markaas sulaymaan ibn alxakam duulimaadkiisii buu iska daayey isna wuxuu qaatay qalcaadkii waqooyiga ku yaallay muddadaasi kooban ee waxaasoo dhammi dhaceen aan ka warramaya waa 3 sannadood gudahood waa 400 ilaa 403 3 sannadood gudahood baa waxaasoo mashaakili dadka ku dhaceen sulaymaan ibn alxakamkii haddana barbarkiibuu dib u kiciyey meeshii ma joogin waa soo noqdeen qurtabuu soo galay magaaladii buu fasahaadiyey kufsi dumar dad la laayo wax walba wuu sameeyey ninkii almustaciin billaahi la odhan jiray la baxay hishaam ibn alxakamkiina meeshii buu ka eriyey meeshiina dib buu qabsaday waxaasoo dagaali waxay dhex marayeen waa 2 nin oo walaala ah qolabana qolo eryanisay muddo aan badnayn ayaa fitankaasi soconayay wakhti yar kadib ayaa qoladii barbariyiintii ninkan waday baa waxay dhaaheen horta heedhaa maxaynu ninkan u wadnaa maynaba meesha qabsanno intaynu wadno ninkan umawiga ee sulaymaan ibn alxakamka maynu sulaymaankaba ka takhallusno inagu qabsanno iyana meeshii bay ninkan ka qaadeen waxaaba qabsaday meeshii gebigeediiba nimankii barbariyiinta ahaa cali ibn xamuud nin la odhan jiray waa qurtabo qabsaday walaalkii qaasim ibn ishbiiliyuu u dhiibtay dabeetana meeshii bay qabsadeen caamiriyiintii oo almurtadaa billah ninkii la odhan jiray la socdaa soo noqday dagaala badan baa dhacay kullu haadaa maxaanu tilmaamayaa waxaanu socdaa uun waxoogaa yar inaan tilmaamo dawaama ayay gashay dowladda islaamiga ee meesha joogtay markii ay taariikhdu maraysay 422 meelahaasi ee warkii loo adkaysan kari waayay maalinba meel mid qabsaday ee dhibtii tiro badatay ayaa qaadigii magaalada qurtuba loo yimi waxa la yidhi sida tan loo adkaysan maayo maxaa la yeelaa wadaadadii waa shireen dabeetana waxa la yidhi khilaafada baan ridna abalxasam ibnu jahwar qaadigii la odhan jiro nin cibaado badan cilmi badanna ahaa ayaa madax laga dhigtay waxaa la riday khilaafadii ama dowladdii meesha ka talinaysay markii burburkeedii tiro batay dabeetana waxaa la iclaamiyey majlisu shura majlis la yidhaahdaa inuu ka talinayo qurtuba magaalada loo yaqaano khilaafadiina inay dhacday dowladdii khilaafadii islaamiga ahayd andalus ka jirtay waxaa lagu kala diray shirkaasi uu qabtay abulxasam ibn aljahwar caalimkaasi la odhan jiray iyo culammadii la socotay waxaana la goostay in majlisu shura uu ka taliyo waddankii laakiin waddanku wuxuu iska noqday waddan dhibaato tiro badan ay ka jirto qabaa'il u kala googo'an waayo waddanka waxa deganaa dad carabta deganee tirada badani gaar ahaan 2 qabiil bay u badnaayeen carab reer mudar ah oo ah carabtii xijaas ka timi iyo yeman iyo carabta qaysiyiinta loo yaqaano oo reer shaam ahaa waxaa kaloo joogay barbarka oo qabaa'il aad u tiro badana waxaa kaloo joogay qabaa'il ama dad loo yaqaano asaqaaliba saqaalibadu culamada taariikh dadkan ay saqaalibada ku sheegaan waxa weeyaan 3 qaybood baa loo qaybiyaa saqaalibada kuwa yidhaahdaan saqaalibada galbeedka oo waa boolandiyiinta iyo jeek iyo slovakiyiinta iyo kuwaasi kuwa loo yaqaano saqaalibati shar oo waa ruusiya alkibaar iyo ukrainiyiinta ama ruusiya siqaar oo balorasiyiinta iyo wax la mida iyo saqaalibada junuubka oo ah yurubta koonfureed kuwa jooga dadkan intooda badani waxay ahaayeen dad waddanka jarmalku intuu duulo oo caruurtoodii iyo wuxuuda soo qabqabsado iyo adoonnimo loo iibin jiray dabeetana mujtamac dhan sidii mamaaligtii atraakta ama masar oo kale qabsatay dad noocaasay noqdeen marka waa qabaa'il tiro badan oo iyaguna waddanka degan
markii ay dhacday in dawladdii khilaafada ahayd ay baabaado loo soo guuro majliskaasi shuurada ee culimmadaas sameeyeen waxaa dhacday inaanay iyaguna xukumin magaalada intan ay magaalada joogaan mooyaane waddanka intiisa kale aanay xukum xoogan ku haynin sidaa daraaddeed waddankii wuu kala googo'ay waxaa soo baxay 22 dawladood oo cusub andalus meel yar bay ahayd andalus waxaa lagu tilmaamaa inay ilaa 600,000 meelahaasi in ku dhadhow 600,000 oo kilomitir isku wareega inay tahay يعني waddankii Soomaaliya 627 buu ahaa Soomaaliya in leeg rulahan marka la eego Soomaaliya oo 22 dawladood noqoto qiyaas reer waliba intii yareeyay uu haystay intuu goostay ayuu dawladda iclaansaday marka hore 7 qabiilo waaweyn bay u kala googo'een Banu Abaad niman la yiraahdo oo Ishbiiliya iyo gaarkeeda qabsaday niman Banu Ziri la yiraahdo oo Qarnaata iyo gaarkeeda qabsaday Banu Jahwar oo qaadigeenu ka warramaynay oo isagu Qurtuba iyo manaatiqda ku xeeran qabsaday Bani al-Aftas niman la yiraahdo Berberiyiina oo iyaguna qabsaday Batlios magaaladan la yiraahdo iyo inta u dhadhow Bani Dhanun nimanka la yiraahdo oo qabsaday Tulaytila Toledo magaaladan la yiraahdo iyo inta u dhow Bani Amir nimanka la yiraahdo oo iyagu qabsaday Valencia ama Valencia meeshan la yiraahdo Banu Hud oo iyana qabsaday Sarqasta ama Saragoza magaalada la yiraahdo iyo inta u dhow waa Spain tan yar ee arkaysan ee Portugiiskan intan oo 22 dawladood loo qaybiyay Portugiiska iyo Spain oo la isku daray oo waliba qaybta sare oo dhan Lyon iyo maxaa la yiraahdaa Qishtaala iyo qaybtan Barcelona Aragon dawladii loo oran jiray intaasina dawlado kale Kristaan ay ka sameeyeen intii ka hooseysay ee muslimiintu haysteen ayaa waxa loo kala qaybiyay 22 dawladood taasi waxa soo baxday markaasi qabiil wal ama reer yaro waliba intuu meel qabsaday ayuu dawlad ku sheegay meel yaro kasto dawlad lagu sheegay waxa loo samaystay nin madaxweynaha oo amiirul mu'miniin sheegta magaalo waxa haystaa waana laqabka la yiraahdo amiirul mu'miniin buu haystaa ciidan buu leeyay wasiirru leeyay lacag buu daabacday gaar oo rasmigii madaxtooyadiisu ku yaalo safiirru leeyay uu dirto nin waliba dawlad wixii ay sheegan jirto dhan ayuu sheegtay dabeetana waxay noqdeen dawlado yar yar oo 22 oo 22 kuba ay col yihiin oo mid waliba walaalkiisa ugu dhow ee muslimka uu iska eegayo si uu walaalkiisa u dhow muslimka ugu xoogaystana dawladaha gaaleed ee markaasi ka xoog waaweyn mid kamid ah uu dabada saaray ama se uu ku tiirsan yahay taas waxay keensatay in gabayaagii la oran jiray al-Hasan ibn Rashid sidoo Imam Dhahabi siyarkiisa jiska 17aad safxada 144aad ku soo naqlinayo inuu gabayo yiraahdo mimma yuzahiduni fi ardi andalusa سماع معتصم فيها ومعتضد ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد يعني قبياغا سي مسلم كابا وحلي وحيابها نغت جيب أندلس وحا كم دبولي دولك أندلس وحا نغت جيب مقاعيدا ترادا بدن لا معتصم يا معتضد المعتصم بالله المعتضم بالله المرتضي بالله المؤيد بالله مد ولبا لقب كيما دحتويدو لهان جرتay buu la baxay waxaan ka fogaaday waxa kamida buu yiri magacyada tirada badan leh ay nimankaas la baxeen wa alqabu mamlakatin fi ghayri mawdi'aha bulay wa magacyo dawladeed waan laakiin meel dawladi joogto loo bixinin kalhir yahki intifakhan sawlat al-asad بعض الروايات صورة الأسد بينها وسيدي بيجي أن على هذا عرّي جير كاللي بحس ككعية عرّي هدو جير سككعية ده اللي بحنا قرنا يوم وبصدقون أنت جير كسككعيسي جير اللي بحسوه كيسي بيلا مدين يعني الدولة ده معها وحب لما وقت كان وحي تاريخ الله ويا قانو عصر ملوك الطوائف أفر بقول يلا بيا لبعتنكي إلا أفر بقول يسدحي سديتك بالسعودي فربقول لبيا لبعتن إلا فربقول سدحي سديتك ووقت إلا بحين مركب ملوك الطوائف ملوك الطوائف oo qaybaha aynu soo sheegnay ee labaatanayada ku dhadhow waxay caan ku noqdeen
kow dad taraf jecel bay ahaayeenoo nimcaystay wadanaad u lacagaystay oo nimcaystaba la googoostay dabeetana waxay noqdeen bay leeyihiin dad tumasho heeso bariis iyo baastiyo wax la cuno un laga shaqeeyo cuno un laga waramo mujtamac nooca u koray bay noqdeen bay leeyihiin waa mar labaadee waxay noqdeen mujtamac duwaylaad yaryara oo dawlad waliba colka ugu weynaa ay leedahay uun yahay kan yara kale u jaarka reer hebela meesha yara ay haystaan waxaa soo baxay bay yidhaahdaan munkaraadkii oo dib u soo noqday iyo fusuuq iyo wixii la mida waxyaabaha aadka u foosha xun leh soo korayna waxaa ka mid noqday dawlad waliba si ay u jirto kuwan yaryar ka midi waxay dhabarka saartay dawlad ka mida dawladihii gaalada ee roonroona ama iyaga ka xoog badnaa markaasi ayay mid waliba dhabarka saartay waxyaabaha kasii foosha xun leh meesha tan ka soo baxay waxaa ka mid ah dawladaha yaryari intooda badani waxay bixin jireen jisya si ay u jiraan yani waxaa taariikhda ku daraasayn jirteen dawlad islaamiya jisya qaada kuwan iyagaa jisye bixin jiray waxaana la siin jiray meliku qishtaala iyo boqorada kale u dhodhow ayaa jisya ka qaadi jiray duwalkan yaryar sanad walba uu cashuurta kusoo dalaciyo lacagta laga rabo inay soo diraan intii hore laga badinayo iyadoo la leeyahay waxaa la ilaalinayaa nabadgelyadaada iyo dadkaaga iyo mujtamacaaga lagu ilaalinaya waxay soo baxeen boqorro yaryaroo markaa nin waliba meeshiisa sidii u xejisto un dawlad weyn oo gaaleedu ku tirsay iyadana intuu lacag siiyo u yidhaahdo kuwan kale ama magaalo iga qaad ama igu yaro durki ama aan kan magaalo ka soo qaato waxa la isku hayoo dhammina waa magaalo aan kan ka riixda iyo magaalo kaasi ay ga riixdo xad bay gaadhay ibnu xasam ilandalusi caalimkii la odhan jiray uu yidhaahdo weedhaadu laadica wallahi low calimuu ana fii cibaadati sulbaani tamshiyatu umuurihim labaadaruu ilayha فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم يحملونهم أسارى إلى بلادهم وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفا من سيوفه وأود ابن حزم ابن حزم باوحو قاعدين ويداهدو إلهي بان كل دارته هدي أيو قادان بيدو كون مدحض الشيغانية cibaadati sulbaan koroska inay caabudaan in arrimahooda ugu fududaanayaan oo arrintu ku kala soconayso way iska caabudayaan buu yidhi wadano madaxdaa buu yidhi haddii maanta la yidhaahdo koroska caabuda arrimihiisu waa kala sahlanaanayaan aad bay u samaynayaan buu yidhi saasi daraaddeed bay dadka muslimiinta xaramkoodii iyo dumarkoodii iyo abnaadoodii iyo raggoodiiba iyagoo maxaabiisaa loo qaadayaa buu yidhi dhulka gaaleed oo lagu xidhanaya magaalooyin dhan oo muslimiintu lahaayeen baa la siinayaa buu leeyahy iyo qalcado dhan oo muslimiintu ay lahaayeen oo islaamka inta laga tirtiro naaquus laga dhex taagayaa buu leeyahy ilaahay dhammaantood ha nacdalo oo seef suyuuftiisa ka mid ah allah ku itixaamo buu ku gebagabeeyey waa wadaad cadhooday waxaa ka muuqata yani wuxuu dareemay sida ay wuxuu u jiraan duwalkan yaryari waxay ku caanbaxeen runtii xaakim waliba inuu meel yar intuu qabsaday dawladnimo sheegtay dawladdiisa yari inaanay jiri karin ilaa iyo dawlad gaaleed oo kale dhabarka saaro mid waliba ninka ku xigee muslimkaa inuu col la yahay ka foge kale ee gaalkaana inuu lacag siinayo ama jisye uu bixinayo casriga caynkaas ee andalus dhibtaasi ay haysatee sida ay u kala daadatay waa casriga ugu culamo badnayd haddana taariikh alislaam marka dib loo daraaseeyo waa wakhtiguu ibnu cabdilbari noolaa 463 buu dhintay casri tawaa'if dhexdiisuu dhintay waa wakhtiguu noolaa abulwaliid albaaji 474 buu geeriyooday waa wakhtiguu noolaa ibnu xasam 456 buu geeriyooday waa wakhtiguu noolaa ibnu xayaan 469 buu geeriyooday waa wakhtiguu noolaa ibnu sayidi 485 buu geeriyooday waxa culamadii ugu badnaa ee taariikhdu ay tilmaamto casri tawaa'if bay noolaayeen muluku tawaa'if wakhtiga kale ay talinayeen bale alimaam abulwaliid albaaji baajadan loo nisbaynaya waa baaja oo magaalo yaroo ku taalla bortugiiska abulwaliid albaaji caalimkan la odhan jiray markuu arkay duwalkan yaryare muslimiinta inay say u kala daadsan yihiin iyo dhibaatada haysata 30 sannadood buu dhex socday isagoo la midooba 30 sannadood baa la yidhahdaa magaalo kastoo ka tirsan ama meel kastoo andalus ka mid ah socod buu ku maray isagoo ku dhawaaqayay dadkan muslimiintii inay midoobaan oo laysu yimaado waa ka ibnu xasam
كتاب كيس نقط العروس لا إله هذا نقط العروس كتاب كيس لا إله هذا بوحيدي فضيحة لم يقع في الدهر على مثلها حترتبوا فضيحة أن تاريخ ابن آدم كهرو سو شيغين بويدي 4 رجال في مسافة 3 أيام تسمى كل واحد منهم أمير المؤمنين بويدي 4 nin oo masaafo 3 maalmood loo kala socdo mid walba intuu meel yar ka degay buu yiri oo sheegtay amiirul muuminiin inuu yahay muuminka oo dhan ba amiiru yahay 4 nin mid walba muuminka oo dhan amiirnimadiisa sheeganaya 3 casho socda baa lagaga talaabaa meeshay degay ninka caadiga maalinta 40 kiiloomitir buu socdaa 3 casho waxa laga yaabaa 120 kiiloomitir in la socdo waa 120 kiiloomitir dhul ah oo 4 amiirul muuminiin joogto oo nin walba meel ka talinayo oo khataba lahum biha fi zaman waahid oo 4 tababu yiri waqti qura khudbada jimca mid walba amiirul muuminiin inuu yahay loogu duceynayo oo khudbada lagu akhrinayo buu leeyahay markaas wuxuu tilmaamay 4 kuwa kala hayeen mid waa khalaf al-husari buu yiri oo ishbiliya ala annahu hisham al-muayyid waxa jira hisham al-muayyid kii oo culamo taariikhda qayb kamid ay qabaan in waqti hore dhintay ayaa waadanba uu nin qaadiyo meel haystay uun baan ninku yiri waxaan arkayba hisham masaajid yar halka fadhiya dabeetana nin baa loo keenay war hisham kan yaa garanay inuu ninkan hisham al-muayyid yahay mid la yiri shaqaalihiisa baa la raadiyo waaba isagii baa la yiri dib baa loo magacaabay isagoo boqorkii al-muayyid billah bari horana taariikhda qoraysa inuu dhintay markaas wuxuu leeyahay khalif al-husari baa ninkan la oran jiray oo isagoo magacii ninkii dhintay sitaba boqornimo loogu khudbadaynayay kan labaadna waxa uu yiri maxamed ibn qasim ibn hamoud oo jaziirat al-khadra meesha la yiraahdo marka la soo galaba andalus xagga hoose tanja iyo marka laga soo galo goobta koowaad la yimaado al-jaziira al-khadra meel loo yaqaano maxamed ibn idris oo isagana malqa magaalada la yiraahdo looga khudbadaynayay iyo idris ibn yahya oo shantarin magaalada la yiraahdo yaani wuxuu tilmaamayaa ibn hazm inay ceeb tahay aan la aqbali karin in 120 kiiloomitir inay yeeshaan 4 amiirul muuminiin inay ka soo baxaan waxa gaadhay waqti andalus taariikhdeedu runtii ma si tiro badan ay leedahay waa waqti marar badan aad soconayso akhrigeeda ama ka warankeedu uu dhib badan yahay waayo markaad maqasho طليطلة دعيتان كيديو كله طليطلة وعاصمة دي برجي هوري سبين لو قتلين شري المسلمين تمركي فرتين عاصمة القوط مركي هوري هانشرتي الثغر الشمالي بين علماء التاريخ تكتل مامان ان ملك الفانسو السادس مركو قبسنا يي نمن كلام مسلمين كل الدولي وعدول المسلمين ولا قبسنا يي ونمن كلام مسلمين كل الدوليان عدة قبسنا سنة وياهي ان ملك قشتالة تاريخ الاسلامي هو اللي ما اركي شري in nin muslima uu ku soo duulo kooxo kale oo muslima oo waxa loo qabanayaa inuu yahay nin gaaleed inuu qabsado meesha tan bal malik qashtaala intuu kibray markaasi waa alfanso saadis isagoo waagii hore aabihii markuu boqortooyada ka dhintay 3 nin oo walaalaaba ku qaybsadeen mid baa dabeetana labadii kale baa soo eriyaday oo meesha ka qaaday alfansahan isagoo qaxoontiye buu Talaytila yimi Talaytila joogi jiray boqorkii Talaytila soo dhaweeyay meelahan oo dhan buu tustusay wixii oo dhan markuu soo eegaaga uu noqday ayaa walaalkii dhintay markuu walaalkii dhintay boqortooyadii isaga dib loo siiyay ninkii halkan qaxoontiga ku ahaan jiray ee dib loo diray ee meeshii tagay meeshii buu dib ugu soo duulay markuu meeshii qabsaday alfansahan madow Afrika joogo kala siisay weeyaan meeshuu qaxoontiga ka ahaa ee uu shalayto qaxoontiga ku ahaa ayuu dib uga soo duulay markii uu la saaray meeshii dib loo saaray wuxuu gaadhsiiyay markaasi xad uu gaadhsiiyo in jisyada markuu ka qaado yani culimada taariikhda haya maasida markay ka waramayaan maasida qaar kood yani culimada taariikhda kamid waxay warinayaan inuu soo diray nin kamid ahaa boqor wasiiradiisii oo yiri lacagtan la isiinayo jisyada si fiican u soo baad lacagtu de waxay ahaan jirtay dahab iyo fidda marka lacagta laga qaadanayo nimankan naaqidiinta ah ee baa jira waxaan eega inuu real yahay iyo waxde macdan aan real ahayn inay tahay marka lacagtii markii laga ururiyay wixii
almuctamid billah kii la odhan jiray meeshiisa markii la joogay ayuu wuxuu ku yidhi boqorkii arrin kaluu isoo faray waa boqorkii yaraa qashtaale haystay waa maxay buu yidhi arrinta kale uu ku soo faray boqorkii wuxuu yidhi waxaa gabadhaydii baa umulaysa dabeetana nimankii qisiisiinta ahaa wadaadadii baan la tashaday tale waxaa la ii sheegay in loo baahan yahay si aan muslimiinta uga xoog bato oo aan ugu wada qabsan karo in islaantaydu ay ku umusho masaajidka qurtuba waa codsi uu soo qortay meliku qashtaala boqorkii almuctamid billah ishbiliya ka talin jiray ayuu wuxuu leeyahay qurtuba isku haystay buu wuxuu leeyahay waxaa loo baahan yahay boqorka habartiisii baa umulayse inay ku dhasho masjid qastaala masjid qurtuba masaajidka weyne qurtuba yani waxa tan keenaya waxa weeyaan waa markii uu dareemay dadka kale inay dad kala lumay oo liita oo midba ka ku xigay iska eegayo oo midna aanu keligii markaa iska celin karin ama aanu wax iska rabi karin uu yahay uu ka qabsaday magaaladii tulaytle la odhan jiray ayaa codsigiisu xadka kan gaadhay taasi waxay sababtay inuu waxoogaa naqwa qaado ninkii safiirkiiba uu dilo loo soo diray oo dabeetana rabshada ay dhacdo oo ninkii duulimaad soo qaado oo mashaakil tiro badan ay u dhaco ilaa xad markii dambe boqorradii yaryara ay isu yimaadeen oo yidhahdeen war maxaynu samaynaa waddankiina difaaci kari mayno markaasay yidhaahdeen aanu nasriga aan soo waaridno war aan caalamulislaami dib u eegno shimaali africa ama shimaali afriqiya north africa dowlad cusubaa kaga dhalatay oo dowlad almuraabitiin la odhan jiray oo markaasi uu ka taliya nin salafi ah oo la odhan jiray cabdillahi ibnu tashfiin yuusuf ibnu tashfiin nin la yidhaahda uu ka taliyo waa oday 80 jir ah oo faraska fuushan haddana dowladdii ninkaas ka talinaya bay u dirteen caawimo inuu soo siiyo dabeetana haddana iyagii baa dhexdoodii shakiyey waxay yidhahdeen hadduu inaga ka ciyaar muu ina qabsadaadee diiba uu ninkan inaga riixo armuu isagu meesha qabsadaa maalintaasi waxay ku tilmaamaan almuctamid billaah ibnu cibaadkaasi go-aan adag buu maalintaa qaatay wuxuu ku yidhi wallaahi laa narca inaan geela ku raaco saxaaraha ayaa ii dhaanta buu yidhi inaan khansiir raaco yacni inuu ninkaasi meeshaba isku qabsado uu geela ii dirto baan ka doorbidayaa in qashtaala intuu i qabsado khanaasiirta la raaciya buu leeyahay dabeetana waxay qaateen go-aanka in muraabitiinta loo yeedho yuusuf ibnu tashfiin iyo ciidamadiisii baa yimi waqcadda caanka ee zallaaqa loo yaqaana ayaa dhacday waa waqcad taariikhda aada ugu caana dibna loo jebiyey qashtaale iyo nimankii ka talinayay markaasi dib loo jebiyey isagaa dirqa ku baxsaday ciidamadiisa dhammaantood meeshay ku jabeen qisaska taariikhiga ee masaa'ilkan ku saabsiisan ma rabo inaan balballaadhiyo laakiin waxa aan rabaa inaan tilmaamo mujtamacu markuu dhexdiisa isagu uu isnaco uun dabeetana uu noqdo yaa kursiga ku fadhiya kadibna tuulo waliba madaxweyne ay samaysato waxay iska ilaalinaysaana ay tahay tuulada kale ku xigta isaguna uu waayo weligiiba magac dowladeed ha sheegto lacag ha samaysto wax yar ha qorqoro laakiin uu waayo muqawamaat alxayaa qaabkii loo noolaan lahaa uu waayo oo noqdo waxaan isdifaaci karin ama waxba iska celin karin waxay noqonaysaa inuu taxta saytarati dawlatin ukhra dawlad kale inuu iyada ku hoos noolaado oo wixii loo yeedhiye kasta uu aqbalo si ay tiisan yari u jirto 22 dawladood baa muddadaasi yar meeshan ka talinayay oo midba ka ku xiga uu iska ilaalinayay oo dawladan kale ee meesha taala uu rabay inuu haddana nimanka waxa sameynaya dhan kale faqri ma hayn xolalaani ma jirin waa waqtiyadii ay ugu badnaayeen waa waqtiga yawmutiin ay dhici doonto waa taariikhda waa maqasheen yawmutiin kala sheego nin boqorada kamid ah ayaa islaantiisii boqortooyada xagga sare fuushay dabeetana iyadoo roobda ay bay waxay aragtay dad wadada lugaynaya oo dumar ah oo cagaha dhoobo intay ka yara fayteen dhoobo dhex socda markaas waxay tiri boqor aniguna waxaan doonayaa inaan dhoobadaas oo yara batalaqsado dabada u baxo qofka bini aadamka waxa caadiya inta ka maqan uu bini aadamku moodaa inay tahay nimcada rasmiga imka ninka baadiyaha jooga ee aan waxba haysanin
talow daaraha dhaadheer mar uun yaa fuula buu isleeyahay kan daaraha dhaadheer fuushanina yaa buuraha mar uun kora buu isleeyahay soo carcarara bannaankaasi oo hiita yar buu dhisanaya waa nolosha bini'aadamka caadiga ah yacni qofba inta uu haysta mooyaane inta kaluu raadceeya u arkaa inay raaxa tahay oo inuu soo sameeyey waxaas islaantan boqorku qabo 800 hablood baa la yidhahdaa dad ku dhadhowba shaqaalaheeda ahaa u shaqaynayaan waxay jeclaatay inay dabadda u baxdo dhoobadaasi ay soo yara batalaqsato ay soo socoto dabeetana wuxuu yidhi boqorkii waad batalaqsanaysaa wuxuu amray tiinatul muluuk in loo sameeyo dhoobo boqortooyaha loo sameeyo buu yidhi waxa la soo gaday wadanka wixii miski iyo cambar iyo wax la isku udgoonayo dhan yaalay dabeetana hal la cajiimaa la yidhi wixii baa la isku cajiimay meel bannaana loogu sameeyey aagaamo yaryarna waa loo soo iibiyey xambaarato dabeetana waxaa la yidhi halkaasi ku batalaqso waxay ku batalaqsatay markaa dhoobo laga sameeyey miski iyo cambar iyo waxaa waa kuwa culammada taariikhdu sheegaan inay beri bay islaantiis qabteen markaasay tiri wallahi ma ra'aytu minka khayran qatu waligay wanaag kaama arag nama maalintii dhoobadana buu yidhi xataa yawmutiin ayuu tilmaamay baa la yidhaahdaa ibnu cabbaadkani weliba wuxuu ahaa nin gabayaaya aad u gabay badan buu ahaa walidaalik akhiiran horta xabsi ku dhintay isagu dowlad muraabitiin baa qabatay oo la xidhay magaalo yaroo Morocco ku taala ayaa lagu xidhay magaaladaasuu ku dhintay nin aad u gabay badan buu ahaa gabayadiisa cajiibka waxa ka mid ah maalin ciideed isagii markii la xidhay reerkii la masaafuriyay meeshii dawladda kale ka dhaceen oo qabsadeen ayaa waxa ku dhacday maalin ciideed buu arkay caruurtiisii hablihii uu dhalay oo kabala oo caguhu dildilaaceen oo islaantiisuna islaan gabayda bay ahayd oo adiibada oo macruuf la yaqaano islaantan uu yawmutiinka ku taamayay oo islaantiina iyana reerahay maryaha u toshaa boqortooyadii iyo nimadii waxa ka dambeysay qaxoontinimadaasi isla wax xabis ku jiro islaantanina ay reeraha u tosho marada ay u tosho maalintii dambe caruurtiisii u timo gabay aad u macruuf u tirinayay oo marka dambana uu ka gabayo cagaha hablihiisa buu ka gabayay uu leeyahay waxaad moodaa maalinna inaanay qoladii dhoobadii ku socotay yaani maalinna inaanay qoladii miskiga taabatay ahayn baad moodaa gabay aad u tirinaya aad runtii gabay calaacal badana oo uu oranayo yaani ninka iga dambeeyo adduun yaani farxad male waxba waxaad haysato isku dhoobadiiba waxaanu ka joognaa buu leeyahay kabalaantaas gabay aad u tirinaya waxaan uga jeedaa mayla ayn dhaqaale lama la'ayn ama dad aan hanti haysan may ahayn dad dacfi kale ka jira may ahayn laakiin waxa ugu badan ee meesha tan ka jiray wuxuu ahaa khilaafkaasi mujtamaca soo dhex galay iyo kuraasidaas yaryar la isku qabsaday iyo mabaadi'dii kulliga ahaa ee la haystay oo la ilaabay oo loo noqday markaasi in dawladaha kale dhabarka la saaro oo la isku dayo taariikhda andalus meelo qurux badan iyo meelo liidataba way leedahay meelaha kan laakiin aan ka warramayo ogaan baan u doortay waayo horaan waxaynu soo nidhi taariikhdu waa beejaj maalinba bog la rogoo la akhriyo bog kasta aad joogta waxaad arkaysaa bog hore taariikheed oo la mid yahay dad maanta arkayso duwal yaryar oo tiro badan oo muslimiina 200,000 kun iyo 500,000 kun inta meel fadhiistay yiri dawlad baanu nahay